كل طبعا حكمة ضد أي تحقق قفكو إن ونرشي سو كل شيء حكمة كود حيل هذا وعرنتا قفكو مركز تا وعرنتا كأجلو يحي نرشي سو نرون عنا بدن هذا الكسم عنو لي هي فكر كسم عنو لي هي قان كسم عنو لي هي سيدو نوري هي واحد نرون عنا له مركز تا قفكو عرنتا لو يحي قفكاس waxay ka dhigaysaa qof garasho fog oo xikmad dheer mar walbana waxay ku toosinaysaa si kasta daroof kastaba in uu qaato go'aamada iyo talooyinka wanaagsan hadii aan soo qaadan xadiiska rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa kamid ahaa runtu waxa ay kugu hagtaa samafalkuna wuxuu kugu hagaa jannada qofkuna kama raago ama kama daalo ama kama joogto yani wuu joogteeyaa in uu run sheego حتى أما هير وكجارو إن حق الله لوجا قرا رنلو مركا حق الله قف مركو كجارو إنه نقضه إن قف رنلو وحنقنا يا قف كترسن ذاتك وناكسن وإلهي أماني حكمة يوناك يقيمها أنا أتيري حكمة الله بعد أي تعقفك إنه ليش يسكدسه والله ما ولا ذو حويه طلقاتك نوصل حياة بدن وقفك صوم مريح بهني هاي إن طلقات كاشدو waayo dulqaadku waxyaabo badan oo ku soo maraya ayaa waxa u baahan inaad dulqaadatid dulqaadku wuxuu ku siiyaa adkaysi karti dhiiranaan xikmad garasho aragti fogaan dhibaatooyinka qaybtood waxay u baahan yihiin kaliya inaad u samirtid waxaan arkaysaa muddo kadib in aad maaragtay ka gudbisid waxaa noqonaysaa qof maaragtay u saaxiib ah deganaan iyo dulqaad qofku markasta uu yahay qof samir badan waxa uu helaa waxyaabo badan Soomaalidu waxay tiraahdaa samra sadkii helaa ilaahayna wuxuu yiri quraankiisa ku jiri inma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisaab marka runtii dulqaadku waa xikmad aad u wanaagsan oo u baahan qofku in uu noloshiisa ku dhiso xikmadda saddexaad waxa weeye hanka sare qofku in uu han leeyahay waxay ka dhigan tahay qofkaas uu yahay qof nool oo jira oo noloshiisa macna leedahay adduunyada marka la joogo qofku inuu aqoon leeyahay inuu dhaqaale leeyahay inuu xikmad leeyahay inuu garasho leeyahay inuu yahay qof macna badan waxay ka dhalataa qofkaas inuu yahay qof han leh Soomaaliduna waxay tiraahdaa qof aanan han lahayn ma hana qaado marka qofku markasta oo han sare uu leeyahay waxa uu kulmistaa oo maaragtay saaxiib la noqda afkaar kala duwan oo wanaagsan kuwaas oo ku taageeraya in uu horay u socdo kadibna uu ku guuleystay himilooyinka uu hiigsanayo xikmadda afraad waxa weeye in qofku daryeelo naftiisa waxa ugu muhiimsan oo qofka bini'aadamka mas'uulka uu ka yahay waxa weeye marka koowaad waa naftiisa adduunka aakhirana waxa la weydiinayaa waxa weeye naftiisa sidoo kale qofka waxa la weydiinayaa in uu daryeelo dadka uu la nool yahay ha ahaado dadka ugu dhow sida waalidkiis qoyskiisa qaraabadiisa saaxiibtiisa iyo bini'aadamka kale iyo maaragtay inuu noqdo qof wax ku ool ah reebaragu waxay dhahaan marka qofka ay qiimeynayaan hebel bow wuxuu la joogaa oo macnaheedu waxa weeye qofkaasu ma yahay qof waxtar ah oo isagu wax qabsaday oo heer gaaray oo macna badan xambaarsan sidoo kale qof ma yahay waxtar u ah dadka kale ee ka agdhow noloshooda wax ku kordhiyay wax taray wax markuu u yariyahayna aan dhibaato u geysan xikmadda shanaad waxa weeye dabacsanaanta ama dhimrinta waxa la yiraahdo runtii wax walba oo loo dhimriyo waxa ay noqdaan wax qurux badan oo wanaagsan xadiiskii wuxuu ahaa nabiga sallallahu alayhi wasallam qofku shay dhimrinta laguma kordhiyo ilaa wuxuu kordhiyaa wanaag iyo qurux shayna dhimrinta lagama saaro ilaa wuxuu kordhiyaa foolxumo marka qofku inuu naftiisa dhimriyo dhibaatooyinka ku imaanay naftaada aadan ulay saarin aad samirtid aad dulqaadatid aan xariis badan tahay aktarka weyn ee Wentworth Miller ayaa muuqaal caan ka noqday baraha bulshada wuxuu la hadlayaa
dad dhageysanaya wuxuuna ku leeyahay haddii aanu naftayda mar walba wax ka sheegno oo aan liidno oo waxa aan ku leenahay ay yihiin waa liidataa, waad xun tahay, daciifaa tahay, hanmaleyd, waxtar ma tihid, naftaydu waxay noqonaysaa naf nugul oo liidataa oo dayacan oo weydii cid u dhimrisa. hadalka aan nafteena ku oranayno haddii aanu ku niraahno qof saaxiibkeena mar hore ayuu noloshayda ka bixi lahaa. marka waxaa loo baahan yahay qofku inuu isu dhimriyo naftiisa, waayo wax walba ma qaban kari. qofku wuxuu leeyahay awood iyo saameyn yar. saameyntaas markasta uu si wanaagsan u adeegsado, naftiisana uu ka bilaabo, wax walbana uu dhimrin ku daro, waxay u kordhinaysaa micne iyo nuxur. xigmadda lixaad waxay leedahay qofku in uu uurkiisa iyo afkiisu iswaafaqsan yihiin. xigmadda iyada waa xigmad aad iyo aad muhiim u ah, waayo qofku markuu yahay qof afkiisa iyo uurkiisa isdaba marsan yihiin wuxuu noqonayaa qof aan la isku hadlayn karin. wuxuu noqonayaa qof munaafiq ah, wuxuu noqonayaa qof liita, wuxuu noqonayaa qof markuu dad la joogana weji tusa, markuu ka tagana weji kala tusa. ugu dambayna dadka noocaas ah heer ma gaaraan. qofku inuu mabda' leeyahay, mowqif leeyahay, uurkiisa iyo afkiisa ay siman yihiin waxay u kordhisaa garasho iyo micne iyo miisaan iyo haybad. marka waxaa laynoo ka baahan yahay in aan mar walba isweydiino uurkayaga iyo afkayagu ma isla socdaa. qofkuna ereyga uusan aaminsanayn ama waxa uusan aaminsanayn dadku waa iska gartaa, mana saameeyo. waxaa laga yaabaa dad badan inaad dhageysatid ama aad daawatid kadibna aad isweydiisid maxay kuu saameyn lahayihiin. dadkaas waxaa dhihi karaa waxa ay sheegayaan dhabka ma aha. haddii aan tusaale kuu siiyo, qof danyar ah haddii uu meel ka istaago uu dadka baryo, dantaasina ay dhab ka tahay, dareenkaas iyo fariinta uu xabaarayo uu dirayo ee uurkiisa ka soo go'aysa kadibna afkiisa soo maraysa waxay saamaysaa dadka uu la hadlayo. laakiin markuu yahay qof aysan daruuf hayn oo caadaystay inuu dadka baryo, waxaa laga yaabaa dadka in hadalkiisa usoo saameyn, isaga laftarkiisa xataa hadalkiisu baahi iyo dareen dhaba kama tarjumayso. marka runtii waxaa loo baahan yahay qofku in uu uurkiisa iyo afkiisa iswaafajiyo. xikmadda xigta waxay leedahay qofku in uu mitid yahay. waxyaabo badan oo nolosha na soo mara, ama fursado aan haysano, ama ha ahaato dhaqaale, ama ha ahaato yool, ama ha ahaato qoys, ama ha ahaato waxyaabo aan ka shaqaynayno, waxay u baahan yihiin inaan ku mitidno. wax walba oo aan saameyn ku leenahay waxay nooga baahan yihiin in aan ku mitidno, aan ku dagaalano, waayo waxaan noqonaynaa dad khayr mas'uul ah. waxaan leeyahay qofka waxaa dambi ugu filan waxa uu mas'uulka ka yahay in uu dayaco. waxaa loo baahan yahay qofku wax walba oo noloshiisa qiimo ugu fadhiya in uu ku mitido. waxaa ugu horeeya qofka naftiisa, caafimaadkiisa, diintiisa, caqligiisa, qoyskiisa, ehelkiisa, qaraabadiisa, inuu yahay qof waxa uu haysto ay qiimo ugu fadhiyaan, ku dagaalama, mabaadi'diisa mitidku ah, waxyaabaha uu aaminsan yahay qofka uu ku mitido. sababtoo qofka hadduusan mabda ahayn uu yahay qof waxa weeye hadba gelinba weji leh, wuxuu noqonayaa qof aad u liita oo aan la isku hadlayn karin. marka waxaa loo baahan yahay qofku inuu noqdo qof ku mitida waxyaabaha uu haysto, ha ahaadeen waxyaabahaas waxyaaba maadi ah oo la taaban karo, ama ha ahaadeen waxyaaba macnawi ah. xigmadda xigta waxay leedahay qofka inuu wax un la sameeyo. awgay xaajaday marar badanna waa soo qaatay. wuxuu yiri mar aan la sheekaystay oo aan weydiiyey talo maandhow in wax la bilaabo doorroon. qofku maalin walba uu timaada waxa uu haystaa awoodo, cimri buu haystaa, aqli buu haystaa, caafimaad buu haystaa. waxa uu ilaahay siiyey waxa loo siiyey inuu ka faa'iideeyo, inuu naftiisa wax ka taro, ehelkiisa wax ka taro, qaraabadiisa wax ka taro, ummadiisa wax ka taro, bini'aadamka wax ka taro. qofku marka inuu yahay qof wanaagsan oo waxtar ah aad bay muhiim u tahay. lamana dhayalsado
waayo waxtarku nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu ka hadlayay wax bixinta wuxuu yiri yaa bixi timir barkeeda Allah ka dhigay yaa marka qofku mar walbaba wuxuu baahan yahay inuu ahaado qof hore u socod ah waxay dhahaan waxa weeye halka kunka mayl wuxuu ka bilaabmaa tilaabo marka waxa loo baahan yahay qofku inuu ahaado qof mar walbaba hore u socda ilaahu ma hal tilaabo haato hadduu wax bixinayo timir jeexad ma ahaato laakiin uu ahaado mar walba qof hore u socod ah oo waxtar ah xigmad xigta waxay leedahay quruxda shayga quruxda la yiraahdo aad iyo aad bay qiimo u leedahay quruxdu waa badan tahay qofku waxa loo baahan yahay inuu ahaado qof qurxoon quruxdaas ha ahaato mid maadi ah ama ha ahaato mid macnawi ah mid maadiga ah waxa uu qofku inuu labiskiisu qurux badan yahay waxa uu Ilaahay siiyay uu qurxiyo uu ku dadaalo uu wanaajiyo xigta waxay leedahay dhageysiga wanaagsan waxyaabo badan oo nolosha ku saabsan waxaan ku xalin karnaa inaan noqono dhageystayaal wanaagsan nabi sallallahu alayhi wasallam xadiiskiisa waxa kamid ahaa in uu yiri hadii qof ku yimaado uu gar ku dhigto qofkaasna in laga soo riday kaliya dhageysan dhageyso qofka kale waxa laga yaabaa in labadaba laga soo riday ama labada indhood laga soo riday dhageysigu wuxuu ku siiyaa xog dhameystiran qofkuna markuu yahay dhageysto wanaagsan waa qof leh astaan wanaagsan oo dadnimo ah waxyaabaha lagu garto dhageysiga wanaagsan waxa kamid ah qofku inuu kugu dhageysto indhihiisa marka qof la sheekaysanaysid waa in aad maaragtay si foojigan u dhageysataa aadna dareensiisaa warkiisa inaad si fiican